kulan wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wadaagga oo ay idiin soo diyaariso dallada Sooma oo ah dallada ay ku mideysan yihiin idaacadaha Soomaaliya ka howlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Somaliland. Barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixino bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaalada iyo meel ka baxsanba. Anigoo Axmed Tifo ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. barnaamijkeenan toddobaadkanna waxaan ku eegi doonaa boqolaal qoys oo ka soo carray dagaalada ka jira deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan oo nolol xumo ku wajahaya magaalada Beledweyne. dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho oo ka qayb qaadanaya daminta colaada beeleedyada ka jira deegaanada Galmudug iyo waraysi aan idinkaga hayno sida xal waara loogu heli karo colaadaha soo noqnoqday ee ka jira qaybo ka mid ah dalka. aan ku bilownay boqolaal qoys oo ku noolaa deegaanada miyiga ah ee gobolka Hiiraan ayaa ku qasbanaaday inay ka cararaan halkii ay ku noolaayeen kadib markii ay ku dagaalameen Al-Shabaab iyo dadka deegaanka oo kaashanaya ciidanka dawladda. reer miyigan oo markii hore la daalaadhacayay saameynta ay ku yeelatay abaarta oo haddana ay ugu darantay colaadda ayaa u jihaystay magaalada Beledweyne xerooyinka ku yaala oo ay ku nool yihiin dadka soo barakacay. waxa ay sheegeen in qaarkood aysan arkin noloshan oo kale haddana ay marxalad adag oo dhanka nolosha ah ay marayaan sida warbixintan ay noogu eegayso Shukri Baryare oo la kulantay qaar ka mid ah dadkan. boqolaal qoys oo ka soo barakacay colaadaha ka jira tuulooyinka hoos yimaada degmooyinka Matabaan iyo Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa soo gaaray magaalada Beledweyne. deegaanada ay dadkan sida gaarka uga soo barakaceen ayaa kala ah Teedaan, Hees, Bukure iyo Qabno. Firdawsa Maxamed waa hooyo haysata 8 caruur ah waxay ka soo barakacday deegaanka Teedaan oo hoos taga degmada Maxaas bilowgii bishii hore ee 8aad ee sanadkan. hadda waxay ku sugan tahay kaamka Doongaduud oo ku yaala xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne halkaas oo ay ku wajahayso xaalad nololeed oo aad u adag. Firdawsa oo ku nool guri ka samaysan cooshado iyo baco ayaa helin cunto ay karsadaan iyada iyo caruurteeda sidoo kale ma jirto caawimaad soo gaartay. waxay xustay in iyada iyo caruurteeda oo colaadaha ku waayay waxyaabihii aasaasiga u ahaa noloshooda ay hal mar cunaan raashin aan badnayn 24 saac. waxa ay tilmaamtay inay tahay nololtii ugu xumayd oo ay wajahdo taariikh nololeedkeeda isla markaana markii ay ku sugnayd baadiyaha inay ahayd xoolo dhaqato nolol ahaan isku filan. aan ahaan awalba xoolo dhaqataan ahaan beledka ma aqoon xoolaha caanahooda iyo carunkoodan cunaynay waa soo hayaanay wax samafalka waxaan ka filanaynaa dal iyo dibad wixii jooga inayna taakuleeyo. Farxiyo Faarax Axmed oo ah horjoogaha xerada dadka soo barakacay ee Doongaduud ayaa sheegtay in 2 boos oo ay ku lahayd xerada banaankeeda ay soo dageen in ka badan 200 oo ah dadkii ka soo cararay colaadaha ka jira deegaanadooda isla markaana hadda ay u baahan yihiin in gurmad degdeg ah la gaarsiiyo. waxay sheegtay in dadka ugu badan ee soo gaaray ay u badan yihiin haween iyo caruur isla markaana dadka intii kale ee xoog lahayd ay ku maqan yihiin dagaalka ka socda miyiga gobolka Hiiraan. Farxiyo ayaa sheegtay inay awooday inay dadka deegaanka ugu sameeyso qayladaan ay ugu soo gurmadaan dadkan isla markaana la soo gaarsiiyay alaabo dhar iyo bustooyin hore loo isticmaalay oo dadka magaalada ay u soo ururiyaan barakacayaasha. waxaan isku qaban qaabiyay inaan boos aniga aan leeyahay oo milkilahayda inaan dadkaas masaakiinta oo soo barakacay aan ku caawiyo. booska aniga awal iima wareegsanayn waa meel bannaan ay ahayd qof wal meel masquul ma lahan aqalada waxay saartaan ma haystaan waxay dhistaan marmariyihii waxay dhistaan hatta waxay saartaan ma haystaan oo bace waxay wax ku karsadaan ma haystaan waxay cunaan ma haystaan abaaray ka soo barakacay ko abaar haysay aadana colaadan baasanoo ay ka soo barakaceen madaafiica ka kor dhacday waxayna ka soo barakaceen galbeedka Matabaan anigoo ku hadlaya afka guddiga ama maxaa horjoogaha kaamka barakac waxaan ka codsanayaa hay'adaha samafalka ee wax bixiyo ama ummadda muxsiniinta waxaan ka codsanayaa inay sidoo ugu dhaqsiyaha badan gargaar degdeg ah ummadda maxaa sheegay la soo gaaraan. dagaal ku dhaxeeya dadka deegaanka iyo ciidamada dawladda oo isku dhinaca Al-Shabaab ayaa saameeyay nolosha reer miyiga oo markii horeba la daalaadhacay abaaraha oo ay ceyrtaysay.
ayaa socday tan iyo bilowgii bishii hore. Faarax Maxamuud Cali waa aabe waayeel ah oo ay barakicisay colaadda deegaanka Hees. Wax badan uma jeedo maadaama uu aragga ka daciifay 6 sano ka hor. Wuxuu sheegay in sanado badan ay nabad ku deganayeen isaga iyo qoyskiisa oo aysan dhagahoodu rasaas maqal, iyaga oo hadda ku qasbanaaday in xitaa qayb ka mid ah alaabahooda ay ka soo cararaan colaadda darteed. Waxa uu sidoo kale sheegay in muddo 3 maalin ah ay dushooda colaad ku socotay kadib ay u suura gashay inay soo gaaraan magaalada Beledweyne, balse aysan jirin dhibaato soo gaartay qoys ahaan. Xoolo iyo beero ay lahaayeen ay markii horeba ka baabi'isay abaarta ka jirta gobolka. Faarax ayaa Soomo sheegay in waxyaabaha ay hadda ugu baahan yihiin ugu horeyso biyo iyo raashin, sidoo kalena ay jirto musqul yari iyo in baco roobka laga galo ay helaan maadaama aqalada u dhisan hadda ay ka samaysan yihiin cooshado iyo calalo qabowga iyo kuleylka dhacaya xilligan aysan awoodin inay ka celiyaan. waxaan ka codsanaynaa in ummadan meeshan joogto musqul male, biyaha lacab male, dharka hatta iska dhaafay biyahan ku dukanan waa weyni madeeray gareen. marka war badan ma aqaanay in iska tacbaan oo iska tabaalaysan odahe laga soo gaaro. way mahadsantahay waryaheena Shukri Baryare oo warbixintaas nala socodsiinaysay. dhinaca kale dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho oo ku nool magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa qayb weyn ka qaadanaya xilligan daminta colaadaha ka jira deegaanada gobolka, taas oo u dhaxaysa beelo wada daga. dagaalo qabali ah oo dhowr jeer oo hore ka dhacay deegaano ka tirsan Galgaduud waxa ay ka dhasheen dhul daaqsin iyo ceelbiyoodyo dadku ay isku qabsadeen, waxaana ku dhintay dad badan oo ay ku jiraan kuwa rayid ah iyo maleeshiyadii dagaalantay. Farxaan Axmed oo ku sugan Gurceel ayaa nooga soo diyaariyay warbixin ku aadan. dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa u istaagay wax ka qabashada colaadaha ka jira deegaano hoos yimaada Xananbuure, Balanbal iyo Cabudwaaq oo ka wada tirsan gobolkani Galgaduud si dadka deegaanadaasi ugu noolaadaan cabsi la'aan isuna booqdaan. Saare Cabdullaahi oo ka mid ah dhalinyaro ka soo shaqeysay heshiisiinta beelo ku dirsanaa deegaano hoos yimaada Xananbuure iyo Balanbal ayaa Soomo u sheegtay in heshiis lagu gaaray 2 shir oo bilihii Juun iyo Julaay ee 2020 ka dhacay Xananbuure iyo Balanbal oo si toos ah u dhaqan gelin. Heshiiska ku meel gaarka ah ee la gaaray ayaa ka duwan heshiisyo hore loo gali jiray, balse si degdeg ah u fashilmi jiray, waxaana ay sheegtay in dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada labada dhinac ay wada hadleen iyadoo aan cid u dhaxaynin, la isuna sheegtay tabashooyinka ay qabaan iyo sida xalka lagu heli karo. Saare ayaa Soomo u sheegtay in hadda qorshuhu ugu jiro sidii u hirgeli lahaayeen wax ka qabashada si wada jir ah dadka dhibka ka geysta deegaanada nabadu ka hirgashay heshiiskana ku xadgudba. khadmar ahaan marka loo fiirsho kaalin weyn horta kaga aadan, sababtoo ah wiil kasta oo qorisita waxa soo diraya waa haween oo guri u joogta ama biyaha ka dabashada baarka u karinaysa. marka haweenku waxa u aadan door muhiim ah oo doorka xataa rag u aadan door ka fiican u aadan, maadaama hooyo tahay xaaskoodina taa walaashoodna kaalinta ugu weyn uga aadan marka nabadda laga hadlayo. raggu marka ay u sheekeynayaan wiilasha iyo marka dumarku u sheekeynayaan in colaad nishaan way kala fiicanta oo waxay aad u dhow nugul inay dhageystaan fariimaha ka soo baxaya haweenka. marka door weyn uga aadan haweenka marka loo fiirsho. waa la kulma meelo badan aan kula kulanay waxay qayb uga tahay xitaa kuwa qorisita marka qaar waa arkay laakiin ma ku badno. waxay qayb uga tahay waxay ka dabasita caanihii way mashxaradaysaa marka dagaalka xabaduhu bilowdaan, cuntadiina way karinaysaa. kaalinta ugu weyn marka iyada ka qaado qofta dhiirigeliya markuu dib u soo noqdo xilliada hore u kala soo laaban geesi tahay marka way ka qayb qaadaan waan aragnay. Cabbaas Cabdi Sheekh oo xubin ka mid ah dhalinyaradan ayaa sheegay in hawshan nabadeynta ah ay soo bilaabeen sanadkii 2019 markaasi oo heshiis ay kala dhex dhigeen beelo walaalo ah oo wada dega magaalooyinka Gurceel iyo Balanbal ee waqooyiga gobolka Galgaduud, laakiin 8 bil kadib uu noqday heshiiskaasi mid fashilmay, waxaana uu tilmaamay inuu arko weli rajo ay ka qabaan in xal waara la kala dhex dhigo beelaha walaalaha ah oo duurtoodu muddo soo jirtay inta badan ay la xiriirto duldaaqsimeed iyo deegaamaysi. Cabbaas waa xusay inay sameeyeen kulamo ay isdhexgalayaan dhalinyarada labada qabaa'il ee muujinaya macaanida nabadda oo mar gaartay in cabsi la'aan dadka labada magaalo u kala safraan. inkastoo aysan hadda colaadi taagnayn, haddana ma jiro heshiis ay gaareen labada qabaa'il oo kala ilaalinaya, taasi oo keeni karta isku socodka.
hadda ka dhalinyaro ahaan waxaan ka shaqeynay deegaano badan oo ka tirsan Galmudug. waa ogtahay nidaamka qabaliga ah ayaa ku weyn Galmudug, beelahana waxa ay haystaan hub ka badan kan dowladda Galmudug. bil kasta waxaa ka dhaca dagaalo beelo walaalo ah oo aan ogeyn waxa ay isku dirirayaan ama ay isku dilayaan. waxaan aragnay ka dhalinyaro ahaan inaan door weyn ku leenahay, oo waxa meesha ku dagaalamaya dhalinyaro yihiin, kan garab siinaya uu dhalinyaro yahay, gabadha caanaha u sida ay dhalinyaro tahay, kan la dilaya uu dhalinyaro yahay, ka wax dilayana uu dhalinyaro yahay. markaad aragto xilliyada dib u heshiisiinta ama goobaha ay ka socdaan, waxaa ku heshiiya oo kaliya odayaasha dhaqanka, kuna kala qaato magta iyo dadkii la iska dilay. dhalinyaradii isdeshana duurka ayay ku jiraan iyagoo weli isku dhaarsan oo wax heshiis u eg xitaa aysan jirin. ujeedkiina ugu weyn waxay u tahay inay dhalinyaradu ka qayb noqdaan goobaha dib u heshiisiinta ka socdo si loo helo xal joogto ah ama xal waara. ololaha nabadda waxaa qayb ka ah dad ehelkoodu ay ku dhinteen colaadda agoonna ay ka dhigtay iyaga oo yaryar, kuwaasi oo dadka deegaanada ku wacyigelinaya muhiimadda nabadda iyo dhibaatada ay abuurto qabyaaladdu. Sahra Cabdulaahi ayaa sheegtay in arrinkaasi uu ka dhashay kadib markii xaaladdu kusii xumaysay colaadda deegaanka ka jirta oo aad u taabatay haweenka iyo carruurta iyo dadka waayeelka ah oo gelisay xaalad barakac ah. waxaana ay tilmaantay in iyada iyo dhalinyarada kale ay istusiyeen welwelka ay leedahay waxbarasho la-aanta ku dhacaysa carruurta yaryar, taasi oo mustaqbalka dhibaatada sii hurin karta. Sahra iyo 6 haween ah oo kale oo dhalinyarada qayb ka ah ayaa rajeynaya in colaadaha qabaa'ilka ee ka jira guud ahaan gobolka Galgaduud qayb ka qaataan sidii xal looga heli lahaa, iyadoo ugu baaqday cid kasta oo arrinkaani u fududahay inay kala qayb qaadato. markii xalka lasoo gabagabay deegaamada waxaan ka qabanaa bulshadan sii wacyigelinaa, sababtoo ah bulshada isdagaalaysa waxaa waaye waa dad jaahil ah. marka loo fiirsho haddii aqoon lahaayeen muhiimadda ay nabaddu leedahay ama ay ku fadhido qiimo ku fadhido maba isdagaaleen. dadkaas waxaan ku dhiirigelinaa wasaaradaha oo kale, si wasaaradda waxbarasho kale ku soo noqon inay u furto koobo waxbarasho isku bartaan dadka isdagaalay, ilmahooda wax isla bartaan, haweenku wax isla bartaan, ayuuna isla sheekaystaan, odayaashuna ay geedaha karta isugu tagaan isla sheekaystaan. marka kama soo tagno oo marka la xaliimaan uga soo tagno, waxaan ku talagalnaa ama aan ku dadaalnaa inaan ka sameyno inay ceelasha isla camaan, tuulooyinka isla tagaan, goobaha waxbarashada isla tagaan. marka saasaan badanaa kama soo tagno. weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka Wadaagga Sooma oo Muqdisho idinkaga imaanaya. haddaba iyadoo ay jiraan dhibaatooyinkaas ka dhashay isku dhacyada hubaysan iyo sida xal waara dhalinyarada ugu keeni karaan colaadaha soo noqnoqday ee qabaa'ilka oo ka jira qaybo ka mid ah dalka ka wareysanay Maxamed Muuse oo wax badan arrintan daraaseeyay. Maxamed Muuse waa kugu soo dhaweynayaa barnaamijka Wadaagga, waana ku faraxsanahay inaan barnaamijkan kugu helno. su-aasha ugu horeysan ku weydiinayo waxay tahay sidee loogu guuleysan karaa xalinta colaadaha ka jira qaybo ka mid ah dalka? bismillahi raxmaani raxiim. ku mahad celinayaa adiga iyo barnaamijka Wadaagba. colaadaha Soomaaliya wax maanta bilowday ma ahanin, waa wax taariikh fog oo horay ilaa Soomaalida weligeed colaad u dhaxay jiray, ama deegaan isku colaadiyaano, ama xoolaha isku colaadiyaano, ama dadka qudhoodu reernimo ha isku colaadiyaano oo qabiil ku saabsan. waxaan markaa waxyaabaha ugu muhiimsan oo lagu xalin kara waxay tahay bulshada in la fahamsiiyo wada noolaashaha ama jiritaanka bulshanimo inuu ku xiran yahay in maslaxada caamka la wada fiiriyo, oo ah midowga mujtamaca, si yacni qarannimo ay u jirto nabad iyo horumar iyo wax walba u helaan, waa inay mar walba ilaashadaan maslaxada guud oo dan u ah dalka iyo deegaanka iyo dadka intaba. waayahay, marka muhiimad intee la eg ayay leedahay in dadku ay fahmaan wada noolaanshiyaha? muhiimadda ugu weyn waxay tahay haddii wada noolaasho ayna dadku yacni helin, noloshaaba dabcan la weynayaa si guud. marka muhiimadeedu waa tii ilaahay qur-aankiisa ku sheegay aayadda qur-aankeed, wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu. dadku waa inay mar walbaba ay fahmaan wada noolaashaha
insaanku waa mar walbaba waa inuu yacni sameeyaa wuxda uu midoobaa si uu isugu heshado oo noloshiisu mid abadiyaho mar walba u jirta ay u noqoto jiilba jiil ay isaga dhaxlaan. maxamedow, maxay tahay tallaabooyinka laga maarmaanka ah si loo yareeyo saameynta ka dhalata colaadaha oo tan ugu badan ay ku dhacdo dadka rayidka ah? waxaa ugu muhiimsan waxay tahay dadka eldariska oo kaleento, dadka mujtamaca social elite-ka, waxgaradka mujtamacu inay u istaagaan si yacni colaadihii saameyntii kala duwaneedoo ka dhalata loo yareeyo, mid cusubna aan hadda loo abuurin. waxa ugu muhiimsan waxay tahay waa inay dadka indheergaradka mujtamacaasu, salaadiintii, aqoon-yahankii, dhalinyaradii, culimadii inay u istaagaan mujtamacaas in laga badbaadiyo colaadaha sanado badan soo socday. marka wax uga muhiimsan dadka oo indheergaradka mujtamaca ma jiraan, ayaga ayaana muhiim in u istaagaan. maxay door ah oo ay ka ciyaari karaan arintan ah in la xaliyo colaadaha maamul goboleedyada dalka ka jira? waa su-aal qayima. waa ta ugu muhiimsanbe maamul goboleedku hadduuse doorka ugu muhiimsan isugu qaadan wax soconaya malaha. sababta soomaalidu waxay noqotay federaal states, state walba marka xayndaabka ama deegaanka uu xukumo oo territorialkiisu ogyahay, dadka degan waa inuu u istaagaa maadaama asiga uu yahay hogaankii, dadkuna hogaan la-aan ma jiri karaan. marka qofka koowaad, doorka koowaad waxa laga rabo waa stateska madaxdooda inay u istaagaan si dadkaas loo nabadeeyo, colaadihii, xurgufihii, raadadkii ka dhashay si loo baabiyo ay ayagu u noqdaan doorka ugu horeeya amba kaalinta koowaad, dadka u istaaga ay noqdaan ay u hogaamiyaan si nabad yacni ay u dhalato. qaybihii dambe ee barnaamijkan, gaar ahaan qaybihii dambe ee wareysigan aan mareyna, sidee colaadaha hubaysan ay qayb uga noqdeen suuqyada hubka lagu iibiyo ee meelo badan oo ku yaala dalka? suuqyada hubka lagu iibiyo colaadaha waxay ka yihiin qeyb weyn ama doorka ugu weyn ayaga ayaa ka qaataa la dhihi karaa. sababtu waxay tahay haddii colaadu dhacdo, laba reer dhexdood ay wax ka bilowdaan, laba shaqsi, cid walba waxay awood u helaysaa meel yacni hubka waxgumaada ee ka hesho. haddiiba colaadi dhacdo in qolo walba ay hubka heli karto, si fududna ay dhibaata ku dhici karto. haddii suuqyada marka aysan jiri lahayn oo meelaha hubka una fududaa lahayn, waxaa dhici lahayd colaadi xataa haddii ay dhacdo hubka waxgumaada sida lagu hela inay adkaato. sababta soomaalidu weligood way dagaalami jireen laakiin may haysan hub waxgumaado. waxaa laga yaabaa colaado sanado socday, dadka dhimashada dhimatay inay wax iska yartahay, labo hal ay naqanayso. laakiin maanta haddii colaad dhacdo laba reer, waxaa laga yaabaa beritu dhimashadu inay ilaa 50-100 gaarto. waana sababta ugu weyn, waana suuqyada hubka laga heli karo oo qof walbaba saacaduu raba heli karo, ku xiran tahay inkamka ama qarashka uu haysto. waayahay, aad iyo aad umahadsan tahay. maxamed muuse ayuu ahaa oo wax badan arinta xalinta khilaafaadyada amba colaadaha daraasiyey. waa ku mahadsan tahay maxamed inaad naga aqbashay inaan wareysigan ku qaadno. waa mahadsantiin adinkana sidoo kaleeto. intaas ayaan maantana kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma. waxaanse dhagaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha ah, sidee dhallinyarada uga qayb qaadan karaan daminta colaadaha ka jira qaybo ka mida dalka? nala wadaag aragtidaada iyo su-aasha aad qabto adiga oo la soo xiriiraya taleefannada idaacaddan. mahadsanidin.